And when I raised up my head, I knew there really is God. He's one. La sharika lah. He has no partners. And I knew Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his last, his final messenger. And I have to follow it. I have to follow it. There's no option. There's no other way. There's deen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan walaalaha qaaliga ah ee ku taxan kanaalkeena waa sheekh. Waxaan aad uga cudur daaranayaa dib u dhaca ku yimid kanaalkeena muddadii bisha ahayd anigoo wax muuqaal ah aan soo gelin. Insha Allah waxaan rajaynayaa inay muuqaaladu sidii hore inoogu socon doonaan. Waxaan kasii ambaqaadi doonaa qaybtii labaad ee qisadii uu kusoo islaamay Dr. Yusuf Esters. Waxay inoo maraysay markii uu Yusuf Esters ka sheekeynayay sidii ay ku kulmeen ninkan islaamka ah ee sababta u ahaa inay islaamaan. waxa uu yiri xaaskaygu waxay haysataa madhabka kiristaanka ah laakiin u janjeera dhanka yuhuudnimada. intaa waxaa dheer aabahay injiilka waxa uu bartay isagoo da'yar waxaana uu ku noqday wadaad ay kaniisadu qadariso. ninka kale ee kaatoliga waxa uu leeyahay khibrad 12 sano ah oo uu dacwada ku soo fidiyay labada Mareykanka koonfureed iyo midka waqooyi. xaaskaygu madhabka ay haysataa waa madhab injiil ah oo cusub una janjeera dhanka yuhuudda halka aan anigu ka dhigtay injiil oo dhan balse aan ku takhasusay madaahib gaar ah. waxaan shahaadada ugu sareysay ee PhD-da ka haystaa culumta theology-ga. waa cilmi ay kiristaanku ku bartaan wixii Ilaahay ku saabsan iyagoo adeegsanaya maskaxdooda iyo xisaab. intayadan kiristaanka ahi midba waxa uu sitaa nuqul Baybalka ah oo ka gadisan midka ay kuwa kale sitaan. waxa aanu miis wareegsan dushiisa ku lafaguraynaa kala duwanaanshaha iyo isweydaarka ku jira diinta kiristaanka iyo injiiladan kala duwan. ninkii muslimka ahaana wuu fadhiyaa waxaana uu aad u la yaaban yahay isdhaafka iyo kala duwanaanshaha kutubtayada. aabahay markaa waxa uu haystaa nuqulkii boqor King James anna waxaan sitaa nuqulkii Bayfas edition. waa dib u habeyn iyo dib u qorid lagu sameeyay nuqulka boqor James. nuqulka aan haystaa waxa uu oranayaa nuqulka King James waxa ku jira qalado. waxay ku qasbanaadeen in ay dib u qoraan kana saaraan qaladaadada ku jira. nuqulka saddexaad ee ay xaaskaygu sidataana waxaa qoray wadaad cusub oo la odhan jiray Jaime. waa wax lagu qoslo. Jaime waa ninkii isagoo la doodaya Sheekh Axmed Diidaad yidhi anigu diinta kiristaanka aqoon fiican uma lihi. waa yaaba sidee ayuu nuqul dhan oo injiil ah u qoraa nin yidhi anigu aqoon uma lihi diinta kiristaanka. ninkan kale ee kaatoliga ah isagu wuxuu haystaa nuqul madhabkiisa oo ka kooban 73 jis halka annaga madhabkaygu ay injiil tahay 66 jis. dhammaan kutubta injiil way ka duwan tahay gudaheedana waxaa ku jira isweydaar badan marka laga yimaado kala duwanaanshaha madaahibka kiristaanka. marka laga yimaado isweydaarka ku jira nuqulada madhab kasta. marka laga yimaado dooda iyo sheekada arrintan ku saabsan ee dhex martay afartooda. door noocee ah ayuu ninkii muslimka ahi ka qaatay? isagu ma ka faallooday diinta islaamka iyo quraanka mise iyaga uun ayuu dhagaysanayay? iyaguse su'aalo ma weydiiyeen ku saabsan diintiisa? bal hadda aynu ku wareejino Sheekh Yusuf Esters si uu faallo kale inooga siiyo doorkii ninka muslimka ah iyo halka isla mareen. sheekhu waxa uu yidhi waxaanu ninkii muslimka ahaa oo magaciisu ahaa Maxamed weydiiyey imsa nuqul oo kala duwan ayuu quraanku inuu leeyahay. waxa uu noogu jawaabay quraanku waxa uu leeyahay hal nuqul oo kali ah. quraanku waxa uu yahay sidii uu Ilaahay kaga soo degay 1400 oo sano ka hor. waxa uu ku qoran yahay luqadii uu ku soo degay ee Carabida. jawaabtan waxay nagu noqotay masiibo iyo qalad korka nagaga soo dhacday. waxaa xusid mudan wadaadka kaatoliga ahaa inkastuu 12 sano daaci ku ahaa madhabka haddana shaki ayaa kaga jiray weliba dhanka caqiidada. aabahayna waxa uu aaminsanaa inaanu kitaabkani ahayn waxyigii Ilaahay oo sidiisii ah laakiin ay dad qoreen iyagoo u malaynaya ama ku matalaya waxay. gabadhayduna waxay rumaysnayd in kitaabkeeda ay ku jiraan qalado badani laakiin si asal ahaan uu ka yimid xagga Alle.
aniga miyaa waxaa jiray arrimo badan oo ku xusnaa kitaabka Baybalka laakiin aanan si fiican u rumaysnayn waayo waxaan arkayay isburun iyo iska hor imaad inuu ku jiro masalooyin maankayga aad u meeri jiray. waxaa ka mid ahaa masalada saddexaynta. waa fikrad ay kiristaanku aaminsan yihiin oo odhanaysa Ilaahay, Ciise iyo Ruuxdu waa hal mid, waana isku Ilaahay, haddana waa saddex shay. subxaanallah, waxaan isweydiin jiray sidee ayuu Ilaahay hal mid u noqon karaa isla markaana uu saddexdan ugu kooban yahay. culimo badan oo ka mid ah culimada kiristaanka oo aan weydiiyey waxay iigu jawaabi jireen jawaabo aan macno samaynayn oo shaki ku jiro. waxaan dib wadaadada kiristaanka ugu celin jiray sidee ay suurtagal u tahay wax aanan anigu si fiican u fahansanayn ama aan si quman iiga dhaadhicin inaan dadka ka dhaadhiciyo oo ugu qanciyo. qaarkood waxay igu oran jireen arrintan wax aad ah ha u caddaynin oo ha waadixinin, waxaad ku dhaaf waa arrin qarsoon oo cilmu sir ah, isla markaana ay waajib tahay in sidaa ay tahay lagu rumeeyo. kuwo kale waxay igu odhan jireen waxaad tidhaahdaa sida ukuntu uga kooban tahay saddex shay isla markaana ay u tahay hal shay ayuu Ilaahay keli u yahay ugana kooban yahay saddex shay. ukuntu waxay ka kooban tahay qolofta ama dahaarka sare, xabka cad ee qolofta ku hoos jira, iyo qaybta jaallaha ah ama huruudda ah ee dhexda ku jirta ee uu ilmuhu ka samaysmo. qaar kale waxay igu odhan jireen waa sida nin iyo xaaskiisu iyo ilmo yar oo ay dhaleen. dhammaan waxaan ay caddaymo iyo daliil ku sheegayaan waa barkumataal iyo wax aan dadka qancin karayn ama aanad ku qancin karin. inkastoo aan ahaa wadaad diinfidiye kiristaan ah, haddana kumaan qancin masaladan saddexaynta, manaan helin jawaab waafi ah oo qof bani aadam ah qancin karta. yusuf, esters, aabbihii, xaaskiisii iyo wadaadkii kaatoliga ahi waxay ka doodaan madaahibtooda. waxay bilaabeen inay la doodaan Maxamed oo ah ganacsadihii muslimka ahaa. waxay weydiiyeen su'aalo badan oo ku saabsan caqiidada iimaanka. ugu dambayntiina waxay habab kala duwan ugu soo bandhigeen inuu diinta kiristaanka qaato. jawaabtii uu siiyey iyo natiijadii dooda ka soo baxday waxaa inooga sheekaynaya sheekh Esters. waxa uu yidhi markaan Maxamed u soo bandhigay inuu qaato diinta kiristaanka, waxa uu noogu jawaabay haddii diintiina uu ku jiro hal shay oo ka wanaagsan waxyaabaha diintayda ku jira, waan idin raacayaa. waxaan ugu jawaabay hubaashi way jiraan waxyaabo badan oo diintaydu idinkaga wanaagsan tahay. waxa uu Maxamed mar labaad noogu halceliyey diyaar ayaan ahay haddii aad keentaan hal daliil iyo caddayn sugan. waxaan ku idhi dhankayga diinta kuma xidhna daliil, caddayn iyo caqli, balse waa shay ceeb ka saliim ah, waana rumaysnaan iyo ictiqaad keliya, uma baahna daliil iyo caddayn. Maxamed ayaa nagu yidhi annaga diintayda islaamku waa caqiido, daliil, caddayn, shay caqli ogol iyo waxay samada ka soo degay. waxaan ku idhi hadday sidaa tahay oo aad cuskataan caddayn iyo caqliga, waxaan jecelahay inaan kaa faa'iidaysto waxna kaa barto. kadib waxaan dhex galnay oo aanu ka doonnay masaladii saddexaynta. mid kasta waxa uu daliil iyo caddayn ugu baadhay madhabkiisa, balse maanan helin caddayn caqligal ah. waxaana Maxamed dib u weydiinay maxaad ka aaminsan tahay Ilaahay haddaad tihiin muslimiinta? Maxamed markiiba waxa uu noo akhriyay qul huwa allaahu suuratul ikhlaas. waxa uu ku akhriyay luuqadda carabiga, kadibna waa uu noo fasiray macnaheedii. isla markii uu akhriyeyba codkii uu ku akhriyay ayaa qalbigayga galay. weli dayaankii codkaasi waxa uu ku soo dhacayaa dhagahayga, welina waan xasuusanahay. macnaheeduna si fiican ayuu noogu baxay, waxaanay nagu noqotay kediso. Allahu akbar. Maxamed waxa uu ahaa ganacsade caadi ah, muu ahayn wadaad afarta madhab ka jawaaba. Maxamed dalkan umuu iman inuu diinta islaamka fidiyo, waxa uu yoolkiisu ahaa inuu soo abuuro xiriir ganacsi oo gaar ah. dadkii uu la kulmay ee dooda iyo wadahadalka uu la galay waxay ahaayeen wadaado waaweyn oo ka tirsan kaniisadaha kiristaanka. waxay ahaayeen diinfidiyayaal qaarkood ka soo shaqeeyay dalal badan. iyadoo ay sidaa tahay, haddana Maxamed waxa uu noqday geesi raganimo leh oo si fudud oo farshaxanimo ku jirta u caddayn kara diinta iyo fikirka uu aaminsan yahay.
waxa uu ahaa nin maskax leh oo kala haadin kara xaqa iyo baadilka. waxa uu ahaa nin laab furan oo aan seef laboodnimo iyo fudayd ku jirin. waxa uu ahaa nin aan jiljiliic iyo labaclabac lahayn. sifooyinkanna waa kuwo u saamaxay inuu hor fadhiisto oo wax la gorfeeyo culimo kiristaan ah oo khubaro ku ah fidinta diintooda. haddaba waxaa muhiim ah in aynu ogaano sidee ayay ku dambeysay doodii dhex martay maxamed iyo afarta wadaad, midkoodna ma ku qancay diinta islaamka iyo sidii uu wax ugu sharaxay maxamed. isagoo sheekada halkeedii inooga sii wadaa waxa uu yidhi, wadaadkii kaatoliga ah waxa uu maxamed ka codsaday in uu u raaco masaajidka si uu u soo arko sida ay muslimiintu u tukadaan. maxamed waa uu ka yeelay, waana uu kaxeeyey, waxaana uu geeyey xarun ama markas ay muslimiintu leeyihiin. wadaadkii kaatoliga ahaa waxa uu soo arkay sida ay muslimiintu u tukadaan, sida ay u weyso qaataan. kadibna waxa ay ku soo laabteen gurigii. kolkii ay gurigii soo galeenba wadaadkii kaatoliga ahaana waxaanu la boobnay su'aasha, muusig noocee ah ayay muslimiintu u adeegsadaan salaadooda? waxa uu noogu jawaabay, noocnaba. annagoo la yaaban ayaanu mar labaad weydiinay, oo ma waxa ay ilaahooda caabudaan oo ay tukadaan iyagoon muusig adeegsan? wadaadkii kaatoliga ahaa wuxuu haddana ugu jawaabay, haa, anna waxaan qirayaa inaan ilaah xaq lagu caabudo jirin ilaahay mooyaane, maxamedna yahay rasuulkii ilaahay. halkii ayuu wadaadkii ku caddaystay inuu islaamay oo uu qaatay caqiidada islaamka. kolkaas ayaan ku celiyey, maxaad u islaamtay? ma sababtaa waxaad samaynayso? waxaan sidaa ku yidhi anigoo isku ciilkaambiyaya, alla muxuu khayrka kaaga horreeyey? wax yar kadib aniga iyo xaaskaygii jaranjarta ayaanu kor u raacnay, waxaana aanu u baxnay xagga sare ee guriga. kolkaanu xagga sare tagnay ayay xaaska igu tidhi, waxaan u malaynayaa in aanan xidhiidhkeenna sii wadi karaynin. anigoo naxsan ayaan ku yidhi, waayo ma waxaad moodaysaa anna inaan islaamay? waxay tidhi, maya, laakiin aniga ayaa raba inaan islaamo. markaas ayaan anna ku yidhi, wallaahi anna waxaan rabaa inaan islaamo. intaa kadib ayaan soo tegay oo inta aan dhulka imid ayaan ilaahay u sujuuday, anoo isla markiiba dareemay in laabtaydu u furan tahay islaamka. guriga ayaan dib ugu noqday, waxaan caddeeyey oo shaaca ka qaaday inaan islaamay. sidaa ayuu ku soo islaamay sheekh yusuf esters, xaaskiisii, aabbihii iyo wadaadkii kaatoliga ahaa. xilligii uu islaamay sheekh yusuf esters waxa ay ku beegan tahay sanadkii 1991. sawirkani waa sheekh yusuf esters ka hor intii aanu islaamin. sawirkanna waa markuu islaamay sheekh yusuf esters.